بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ودرسي لبي تبناد دروستي بشهر رمضان أنا قلت لك لي تفسير في جزء عامة وحين قادم دونا إن شاء الله تعالى سديد السورة القرآن كودن بيي سورة الماعون أي درسي يعني كبلاون إلى سورة الناس وقرآن كودن بيس سورة الماعون وسورة مكية أيضا سيدي سورة جزء أبنايين با مرحلة دي هوري سو دكتي النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجري انتو سو هجرونين waxay ka hadlaysaa laba arrimood oo ah ama saddex arrimood midda koowaad maalinta is-abaalmarinta iyo abaalgudka aakhiro dadka beeniyey calaamaadka lagu garto talabaadna waxa weeye dadka iyagana salaadooda dayaca kaalmada iyo ihsaanka khalqiga loo sameeyana reeba iyagana abaalkooda Allah wuxuu tabaaraka wa taala ara'ayta bal kawaran ama ara'ayta ma ogtahay yani ma garatay alladhi midka yukadhibu beeninaya bidiini abaalgudka beeninaya abaalgudka aakhiro midka beeninaya kaas bal ka war fadalika kaasi alladhi midka way yad'u tikhantikhinaya riixaya alyatiima agoonka riixaya oo walaa yaxudu aan tirtirsinaynin ama boorinaynin على طعام المسكين مسكين كقود كيسنا أن بورنين مسكين كقودين تيسا أن دتك كبورنين فويل هلاك يهوك للمصلين كوة كذو أسق ناضي الذين كواسو هم إيجو عن صلاتهم صلاة وضع حق هذا ساهون موك كوا موك أما هالمانسن الذين كواسهم يجو يراؤون استستسا ضدك استسا وأسمي وحي سمينيان هلا يدين أركو ويمنعون الديدة أم الريبة الماعون شيء ليسقو كالميو شيء ضدكو أي سقو كالميو وليسقو عاويو كان الريبة طيب قولوا أنا هلاك بأسقنا ذي رأيت الذي يكذب بالدين أما المرينتا آخر ومبدئي أساسي أها وإن ليس حسابين دونه ليسنا أبا المرين دونه نول ضمنا أي تشيرتو مبدأ آسي بينينتي سددك بينيي على مدى اللغو قرتو أي سورة قيبت هورة المانتي وحربي تبارك وتعالى بالكاكا ورن ما تقاناوي ما قرانيسا ما ogtahay ma aragtay waa lagu sheegi waay ruux aakhira iyo abaalmarinta beeniyay hadaad rabto inaad ogaato waa kan waa ruuxa agoonka xaqiisa ka riixa daciga waxa la yiraahdaa qadaadka inta la qabto ilna tiqantiqiya la yiraahdaa waxa laga wadaa in sida mujaahid uu leeyahay وحويان يدفعه عن حقه وروح أجونك حقي سكريحده حق الشيكتا حق دركو قات أجونت حوله هذه حقوق ذا كاسوا قضب كلا بعدي وحويان مساكين تا يدتك تورتير عاوين تودي كالمين تودا إن لقودية وحلا ترنا دتك كوما بوريو كوما ترترسيو دتك كوما قلقاليو taana waa qodobka labaad labada qodob ruuxa kulansaday abaalmarin ma rumaysna waay ayay ruuxa duu aakhiraya abaalmarinteeda rumaysan yahay
dadka tabarta daranna wuu u turaa khalqigana ixsaan buu u sameeyaa marka calaamad wuxuu uga dhigay beeninta abaalmarinta wuxuu calaamad uga dhigay laba arrimood manci almacruuf waaliqdaam calaa iidaa'i daciif wanaagga oo la diido iyo dadka tabarta daran oo la dhibo yani wax weeye la xoog sheegto labada arrimood haddaad ku aragta ruuxa bimacnaa abaalmarin aakhara ma rumaysna waaye leanna hadduu ruuxu abaalmarin aakhara rumaysan yahay iyo waa lagaa daba imaan doonaa iyo waa lagula xisaabtami doonaa wuxuu iska ilaaliyaa dadka tabarta yar inuu dhibo xuquuqdooda xaqdarro ku qaato khalqiga in ixsaan loo sameeyana wuu ku dadaalaa isaguna ixsaan buu u sameeyaa dadkana wuu amraa inay ixsaan u sameeyaan ayib qodobka labaadii waxa weeyaan ee suuraddu ka hadashay dad tukada ayay eed u soo jeedisay way tukadaan fawaylu lilmusalliin kuwa salaada ka tegay maaha dadka aan tukanin ayaga sha'nigooda sha'ni kale waaye kuwaas iyaga lagama hadlay waa gaalo laakiin kuwa tukada ayaa la eedaynaya fawaylu lilmusalliina waa kuwe waa kuwa salaadooda halmaama way tukadaan laakiin salaadooda way moogyihiin say salaadii ku wayba tukanayaan say ku moogyihiin waxay culimadu leeyihiin moogida salaada waxaa laga wadaa in salaada waqtigeeda laga dibdhigo oo xilli dambe la tukado ama ma ahe salaada markuu ruuxu tukanayo inuusan waajibaadkeedii arkaanteeda dhammaystirin maalan inuusan ku xasilin rukuucdeedii sujuudeedii akhrintii wax quman uusan akhrin arkaanteedii iyo qaabkii loo tukanayay inuu ku ciyaaro ama wax ka dhimo ama waqtiga inuu ka saaro dib u dhigo waa tukanayaa laakiin salaadiisa uma aabayeelayo waa fududaysanaya waa iska fududaysanaya kaasaa laga wadaa fawaylu lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun yani ka tegay lagama hadlayo marka sahwigu sidaas weeyaan waxaa daliilu ah nabigeena sal ly slam xadiidkiisii u lahaa tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiq taasi waa salaadii munaafiqa taasi waa salaadii munaafiqa taasi waa salaadii munaafiqa wuxuu nabigu sal ly slam yarqubu shamsa xataa ida kaanat bayna qarnay shayطaanin qaama fanaqaraha arbacan laa yadkuru allaha fiiha ila qaliila salaadii yani wax weeyaan casarka ayuu iska sugahayaa waa dibdhigahayaa markay qoraxdu iilka sii gelayso oo shaytaan labadiis gees ay u dhaxayso sii gelayso godka sii gelayso markaasuu intuu istaago iyo 4 ragcadood ayuu qub madaxa ku garaacaya dhulku kala boodboodahaya sida muxuu ahay qolay biyo cabayso kale tayib ilaahayna in badan kuma xusaayo bimacnaa dikrigii salaada loogu talagalayna wax badan la imaan maayo waa uu idhaafi iga rid salaatul munaafiqiin buu nabi sallallahu alayhi wasallam muxuu isku daray marka salaadii waqtigeedu ka dib dhigay iyo markuu tukanayo si saaniyo saxsan uusan u tukanin salaada noocaas oo kale dadka u tukada way dadka leeyahay fawaylul lilmusalliin dadka way macna tayib laana wax way taagan yihiin laakiin waxay tukanayaan salaadii loo diray maaha waqtigii maaha qaabkanay u tukanayaan qaabkii loogu diray maaha salaadii yani waxa weeye asaasiyaadkeedii dhima yihiin bay tukanayaan waa qoladaas waxaa lagu sifeeyey haddana qodob kale waa dad markay cibaadaysanayaan oo tukanayaan haddana ikhlaas iyo ilaahay dartii kama aha aladiina hum yuraa'uuna halaydin arko iyo halaydin maqlo iyo halaydin ka sheego iyo halaydin ammaano iyo dana adduunyo ku gaadha iyo ku gabada dana kale kaleeyihiin way istustus mooyaane ilaahay dartii ilaahay ku raaligeliya janno ku hela maaha ujeedadooda qodobkaas kale leeyihiin waxa weeye wayamnacuuna almaacuuna maacuunta waxay leedahay waxyaalaha la isku kaalmeeyo waxay leeyihiin aimada salafku yani waxa ugu weyn sakada cikrima soo leeyahay waxyaalaha la isugu kaalmeeyo baa waxay u qaybsan waxyaalo waajib ah sida sakado kale iyo waxyaalo aan waajib ahayn sida sadaqaadka waxyaalaha yaryarka dadku kala caariyeystaan ihsaanka la isu sameeyo waxa soo dhan waxa la yiraahdaa maacuun baa la yiraahdaa tayib waa shayga la isugu kaalmeeyo dhan baa maacuunka soo galay macna sidaas weey oo waxa yani wax weey ay Abdullah ibn Mas'ud iyo mufassiriinta qaar kood waxyaalaha yaryarka dadka dariskii kala qaataan way soo galayaan
biyaha iyo dabka iyo yani qaadada iyo digsiga iyo milixda iyo waxyaalaha dadku ay isugu kaalkaalmeeyaan ee reer wadaanta iyo waxaasoo dhan way soo galayaan laakiin waxaa la yidhahdaa wax kastoo la isugu kaalmeeya ama waajib ha noqdo sida zakadoo kale ama ha ka hooseeyo waajib yuusan ahaanin taana way diidayaan bimacnaa waxa weeye ayagii inay bixiyaan iska dhaafay xataa dadkii bixinayay bay u diidayaan dadka noocaasoo kale marka waa dadka halaag gala way macnaha suuraddani intaasay ka warrantay marka waxa weeye yani dadka khalqiga inta tabarta daranna ha ku taagsanin oo xuquuqdooda ha duudsiinin inta kaleetay khalqigana ka shaqee sidii aad u anfici lahayd af iyo adin intaba salaadaadana hagaajiyo waqtigeedana ilaali muxuu ahaay qaabkaad u gudanaysana qaab saxsan salaada u tuko oo toosi ilaahay dartiina u tuko khalqiga ilaahay waxyaalaha loo baahan in la isugu kaalmeeyana kaalmadaana qaybtaada ka noqo macnaha oo bix suuradan waa suuratu iyadana suuratul kawthar weeye iyadana waa suura makiya weeye marxaladii hore soo degtay Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala inna anagu a'taynaaka waan ku siinay nabi maxamedow al-kawthara wabiga kawthar ilaadan ku siinay ama khayrkii badnaa baan ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbiga darti u tuko oo wanhar dhuundhow ama gowrac oo rabbiga darti u gowrac inna shaani'aka kan ku cadhoonay ama kan ku nacab ama ka ku colaada ku haya huwa isaga al-abtaru ku daba go'an isaga go'an oo khayr oo dhan ka daba go'an sidaas way macnaha inna a'taynaaka al-kawthara nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay ni'amkii uu siiyay nicmooyinkuu siiyay oo aad u badnaa nicmooyinka waaweyn ilaahay ugu deeqay waxa kamida in ilaahay uu siiyay kawtharkaas marka ilaahay baa ugu galad sheeganaya yani nabigiisa maxamed sallallahu alayhi wasallam waxyaaluhu siiyay ayay kamid marka waan ku siinay buu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala kawtharka maxaa la yiraahdaa kawtharka mufassiriintu khayr badan way ku fasiraan si gooniya waxaa loogu fasiraa nabiguna ugu fasiray sallallahu alayhi wasallam sida xadiidka Anas ee Muslim uu soo saaray ku tilmaamayo webi nabiga sallallahu alayhi wasallam khaas oo aakhira ku yaala xadiiskaasi wuxuu leeyahay Anas wuxuu leeyahay anagoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhex joogna masaajidkana joogna ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam sidii wax seexday oo kale wax yar ayuu muxuu ahay markaas uu soo baraarugay isagoo muusoonayo ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam madaxa kor u soo qaaday markaas waxaanu ku nidhi ma adxakaka ya rasuulallah maxaa ka qosliya rasuulka ilaahay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laqad unzilat alayya anifan suura hadda dhowba waxa la igu soo dejiyay buu suurad markaas uu akhriyay bismillaahir rahmaanir rahiim inna a'taynaka al-kawthar suuradaas uu akhriyay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam atadruna mal kawthar kawthar kaasi leysiyay ma garanaysaan way yani ma fahanteen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxaan nidhi Allahu a'lam Allahu rasuuluhu a'lam ila rasuulkiisa garanay ma na fahmin wuxuu markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal fihi khayrun kathir aw alayhi khayrun kathir saasi macna yani waa wabi rabbigay yaboohay inuu isiinayo oo khayr farabadan u dhaxdiisa yaalo wa huwa hawdun taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah wa dar ummadaydu maalinta qiyaamada ay ku soo aroori doonto aaniyatuhu adadu an-nujumi fi as-samaa tayib yani weelashiisu samada xidigaheedoo kale la egyihiin tirada inta weel meesha yaale lagu diyaariyay markaas uu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qaar ummadayda kamida markay ku soo arooraan oo ka cabir rabaan baa laga celinaya markaas aan leeyahay ummadaydi waay markaas waxa leeyahay la tadri ma ahdathu ba'daka markaad ka soo tagtay gadaasha waxay dib kala yimaadeen bidcooyin iyo khuraafooyin iyo yani way lumeen gadaashaas wax bay dib kala yimaadeen ma ogid bal waxay dib kala yimaadeen wala ceelin kuwa wala celinaya marka toggaasi ama wabigaasi ayaa nabigu ku fasiray sallallahu alayhi wasallam kawtharka yani waa waxun ilaahay tabaaraka wa tacaala uu abuuray oo caadi ahayn waa tayib مثلا dhinacyihiisoo kale waa yani isagoo dhan wuxuu ka sameeysan yahay luul waay caradiisu waa miski sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha malabka waa ka macaan yihiin وهكذا tilmaamo badan oo noocaas ku xadiidkaasi kawtharka ku soo arooray waa xadiid mutawaatir waay sida culimada xadiiska qaar kamid tilmaamayaan marka
khayrka faraha badan ayaan ku siinay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam طيب hadii lagu siiyay inaad ka shukrida way marka shukriga khayrka faraha badan muxuu yahay marka fasalli li rabbika wanhar laba cibaado oo muhiim oo ilaahay jecel yahay ayaa shukrigi laga dhigay marka midi wax weey waa salaada rabbiga dartii u tuko wa a'zam al-ibadat al-badaniyya cibaadaadka jidhku sameeyo midda ugu weyn waay midda labaadna waxa waa gowraco waxay leeyihiin waa ajallu al-ibadat al-maliyya cibaadaadka dhaqaalaha ku saabsan iyo xoolo la bixiyo gowraca ugu muhiimsan bay leeyihiin marka labadii cibaado gowrac oo rabbiga dartii u gowrac oo xoolaha waxyaalaha hilibkooda la cuno intaad gowracdo yaani ilaahay dartii u gowrac gowracaasa cibaado ah salaadana tuko hagaaji arrinkaasi warka waxa shukrigi nicmadaas way macna طيب waxay la mid tahay oo kale meer kale waa kale isku lamaaniyay qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salaadayda iyo gowracayga leeyid salaadayda iyo gowracayga wala isku xidhay macna sida halkan bal isugu lamaaniyay qoliyaha qaar waxay leeyihiin fasalli li rabbika wanhar waxa laga wadaa yaani ciidul adha ciida arafada salaadii ciida iyo xoolihii ka dambeeyay la qalahay udhiyada ahaa ama hadiyigi lagu qaliyay xaramka waxaasa laga wadaa bay leeyihiin laakiin aayadu waa ka gudaweyn tahay fasalli li rabbika wanhar way soo gali karaan laakiin macnaheedu waa ka gudaweyn kadib waxa la sheegay inna shani'aka huwa al-abtar nabiga sallallahu alayhi wasallam gaaladii la dagaalamaysay ayaa waxyaalaha ay ku sheekaysan jireen waxa kamid ah maxamed waxba iska daaya isagaaba iska dabar ku idoonee maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wiilashiisu iyagoo yar yar bay wada dhinteen gabdhaha waaweynaaday oo la guursaday oo caruur yeeshay laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wiil uu dhalay ma qaan gaarin yaraan bay ku wada dhinteen marka waxay dhihi jireen odayaasha gaaladii war wiilba ma lehe uu dabagu idoonaaye nin aan wiil lahayn hadda dhimashadiisa ugu dambeysaba uu dabagu magaciisuna uu dhamaan isaguna saas ku dabagu idoona Allah tabaaraka wa ta'ala markuu wuxuu leeyahay inaad adigu dabar go'do dabagooda iska badaay kan yaani wax way ku cadaysan ama colaada ku haya ama ku nacab kaas way midka dabagu idoona waa odayaashii iyo wixii la halmaalo waa طيب لان abtarka waxa la yiraahdaa alladhi idha mata inqata'a dhikruhu ruuxan ama yaani ayna ka hadhaynin wax la yiraahdo ubad uusan ka hadhayn ama ruuxa markuu dhinto magaciisu baabaayo dib dambe aan loo sheegin ba abtar la yiraahdo marka labada midna ma labada midna nabi maxamed ma ahayn salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bal kuwi isaga la dagaalamay waa abtar aha oo yaani wax weeye sheegidoodii go'day ehelkoodii go'ay amalkoodii daba go'ay yaani wax weeye kooxdoodii daba go'day kulligood waa dhamaadeen hadii la sheegayo xataa xumaan iyo habaar in lagu sheegayo lacnad mooyee sheegid kale ma laha laakiin nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maalin ka dambaysa ummadiisu ka sii badan oo maalin ka dambaysa ka sii sharaf badan oo maalin ka dambaysa ka atbaac badan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka kaas weeye wuxuu leeyahay sheekh islaam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah waxa la mida ruuxa nacab nabi maxamed wuxuu la yimid sallallahu alayhi wasallam wax kamida sunnadii uu la yimid diintii uu la yimid sharciga uu la yimid wax kamida ruuxii nacay asagana waa abtaro wuxuu ku dambeyn doonaa daba go'naan in yaani wax way khayr oo dhan laga daba jaro ayuu isaguna ku dambeyn doonaa buu leeyahay waana ahlul bid'a wax ku dhacay way macna inna anagu a'taynaaka waan ku siinay nabi maxamed al-kawthara wabigaasaan ku siinay kawthar la yiraahdo ama khayrka faraha badan baanu ku siinay ee fasallitu kulli rabbika rabbiga darti utuko oo cibaada yaani wax weey li rabbi li ajli rabbika wa طيب wanhar nahriga wax la yiraahdo waa dhuundhabida inta badan kelimada waxa loo isticmaalaa geela gowricidiis laana geela iyo xoolaha kale isku si looma gowraco marka geela dhuunta lagaga dhuftaa meeshaas uu muxuu ahay luqunta dheer hoosteeda ayaa mindida lagaga dhuftaa kadibna dhinacyaha loo marka nahrigu waa kelimo inta badan geela gowriciisa loo isticmaalo waay طيب gowrac baa la leeyahay inna shani'aka midka yaani wax way ku inna shani'aka kan ku cadaysani ama kan yaani ku nacab ama kan cadaawada ku hayay huwa isaga ayaa al-abtaru ku daba go'an isaga ayaa daba go'aya magaciisa iyo isaga iyo wixii soo dhan isaga baaba ayay way macna
adugu ma tiid mid ka daba go'aya sidaas rabbi tabaaraka wa tacaala ku yidhi nabiga sallallahu alayhi wasallam suuratul kaafiruun ay suuradda inoogu xigta ayaduna waa suura makiya suurad makiya weeye waxay soo degtay iyaduna marxalada hore ee nabigu sallallahu alayhi wasallam ka joogay waxayna ka hadlaysaa hal mawduuc ay ka hadlaysaa iyadoo dhan ku wareegaysa mawduucaasi waxa weeye waa ikhlaasul cibaada lillahi tabaaraka wa tacaala ilaahay in cibaadada loo gooni yeelo oon cidna lala wadaajinin shirkigana laga bari noqdo sidaas daraadeed ayaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka axmed uu soo saaray qeyrkiiba wuxuu yidhi innaha baraa'atun min ashirk suuraddani sideedaba yani waxa weye waa ka beri noqosho shirki laga beri noqonayo shirkigoo la iska fogeynayo way macnaha marka cibaadadaas ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo u gooni yeelidiisa ayay iyada dhan mawduucaasay ku saabsantao ka hadlaysaa suuraddan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam munaasabaad kala gedisan buu ku akhrin jiray labada ragcadood ee dawaafka midda hore uu ku akhrin jiray tan dambana qul huwallaha salaada fajarka labada ragcadood ee ka horeeya ayadana sidoo kale ragcadda hore uu ku akhrin jiray midda dambana qul huwallaha markuu seexanayo nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo kale uu akhrin jiray witirka oo kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam yani ragcadaha witirka mid kamid uu ku akhrin jiray marka wax weeye waxay kamid tahay suuradaha munaasabaad kala gedisan uu nabigu akhrin jiray ummadana u jideeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala marka qul waxaa tidhaahdaa nebiyow yaa ayuha alkaafiruun kaafiriintiiyey gaaladiiyey laa acbudu caabudi maayo maa shayga tacbuduuna aada caabudaan ayib hadda aada caabudaan ama caabudi doontaan anigu caabudi maayo kuma jiro walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabudaya ma tihiin maa acbudu allaha aan caabudo ayib yani waxa weeye haddana ma caabudaan mustaqbalna caabudi maysaan walaa ana aniguna mayhi caabidun mid caabuda maa cabadtum waxaad horey u caabudeen waxaad horey u caabudi jirteenna cibaadadiisa anigu idinkamala qaybgelin waxyiga ka hor walaa antum idinkuna caabiduuna kuwa caabuday ma tihiin horey umaydaan caabudin maa acbudu allaha aan sida joogtada u caabudo lakum waxaa idiin sugnaaday marka diinukum diintiinna waliya anna waxaa ii sugnaaday diinii anna diintayda ii sugnaatay anna taydaan leeyahay idinkuna tiinaad leedahay waxay ka hadlaysaa way ku timid bay leeyihin culimmadu gaaladii khaasatan quraysh iyo carabtii baa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay u soo jeediyeen maxamedow dagaalkan iyo qajajacdan iyo dhibkan iyo colaadan in dhex taalla aan ka heshiino ayb saynu heshiinaa waxaan u heshiinaynaa aan cibaadada iyo ilaahyada isku darsanno mar noo soo tanaasulo nala caabud kuwanaga marna aan kuu tanaasulno oo aan kaaga kula caabudno sidaana aynu u heshiino oo khilaafkan iyo waxan iyo dhibkan iyo dagaalkan aan iska dayno marka aayadana marka suuraddu waqtaasay ka hadlaysa marka waxaa la leeyahay waxay haystaan waa baatil adiguna nebi maxamed waxaad la timid waa xaq waa xaqii ilaahay waa tawxiid ayaguna shirki bay wataan shirki iyo tawxiid maa la isku darsan karaa wadduu low tudhinu fayudhinuuna kala waay waxay damceen inaad u soo dabacday rabaan iyaguna kuu soo dabcaanoo meel dhex isugu timaadaan ama waxaasaa isku darman kara waay ya nin baadil watiyo nin xaq wato aan isku darsanno baadil isla noqon way macnaha ilaan xaq iyo baadil iskuma darman karaan marka taasaa la leeyahay iska foge waxaad caabudaysaan lama caabudayo idinkuna allaha xaqeen xaqa ku caabudi maysaan intaad gaalatiin caabudi maysaan macnaha wasful kufri intaad ku sifaysan tihiin caabudi maysaan ayib marka muxuu ahaayey hadalka soo noqnoqday laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbudu walaa ana caabidu maa cabadtum walaa antum caabiduuna maa acbudu yacni soo noqnoqodka hadalka la soo celceliyey ma uun kii hore miyay is adkaynaysaa waa tawkiid miya oo labada aayadood afarta aayadood lababa way isleeyihiin marka ma uun hadal is adkaynayo oo laga daba keenay kii hore si uu u adkeeya miya mise way kala macno duwan yihiin waa mufasiriinta qaar waxay leeyihiin way is adkaynayaan
oo laa acbudu maa tacbuduun iyo walaa ana caabidun maa cabadtum labadaas way is adkaynayaan oo nabigay ku saabsan yihin sal alay wasalam walaa antum caabiduuna maa acbudu iyo talamidkee soo noqotayna gaaladii bay ka hadlaysaayo way is adkaynayaan sidaasi waa tafsiir laakiin waxaa ka fiican in la yidhaahdo ma ahee way kala macno duwan yihiin mid walba aayad walba macno waxay wadataa tii hore macnaheedii ka duwan waa ta'siis baa la yidhaahdaayo macno madax bannaan bay wadataa mid walba see la yeelayaa marka sidaa marka la yidhaahdo laba mid baa la maraya in la yidhaahdo laa acbudu maa tacbuduuna nebigu sal alla alay wasalam ma caabudaya waxaad caabudaan wuxuu ka hadlayaa haddoon joogno iyo mustaqbalka soo socda midna haddana caabudi maayo mustaqbalna rajo lagama qabo inaan wixiina caabudo waa midda hore laa acbudu maa tacbuduun tiisa dambe ee isla nebiga ku saabsanee walaa ana caabidun maa cabadtumna waxay horay u caabudi jireen intii loo waxyoonin ayuu wuxuu ka warramaya uu leeyahay horayna idinkalama qayb qaadanin walaa ana anigu caabidun mid caabuday ma ihi maa cabadtum waxaad horay u caabudeen asnaamtiinnii horena idinkalama qaybgelin idinlama caabudin haddana caabudi maayo mustaqbalkana rajo male inaan idinla caabudo taa waa mid gaaladana walaa antum caabiduuna maa acbudu hadalkan ayaga loo jeedinayana waxa weeye walaa antum caabiduuna maa acbudu oo midda hore ah waa hadda iyo mustaqbalka walaa antum caabiduuna maa acbuduna waa horaan waxaad horay u caabudeen walaa antum idinkuna caabiduuna maydaan caabudin waay horay maydaan u caabudin maa acbudu allaha aan keligii anugu caabudo si joogtada aan u caabudo macno waa macnahaas waay macno kale waxa weeyaan oo marka la yidhahdo ha la kala duwo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo laba ayadood waxay ka hadlayaan macbuudka oo isku macbuud ma nihin laba ayadoodna waxay ka hadlayaan cibaadada oo isku cibaado ma nihin saana waa loo kala duwi karaa oo waxay noqonaysaa laa acbudu caabudi maayo maa tacbuduuna midkaad caabudaan oo sanamyada iyo dhagaxyaanta ah macbuudkaad caabudaan anugu idinla caabud maayo macbuudkaygu waa alla keligi ayib ta dambana maxay noqon walaa ana caabidun maa cabadtum waxay noqon walaa ana anugu caabidun mid caabudaya ma ihi maa cabadtum cibaadadiinoo kale cibaadadiinnan shirkiga ah anigu ma caabudayo cibaadadaydu waa tawxiid tiinuna waa shirki marka maa cabadtum waxay noqonaysaa marka cibaadatakum oo maadu marka masdariya noqonaysaa macnaha cibaadadiinnan caabudi maayo kaad caabudaysaanna caabudi maayo oo waa macbuudkii iyo cibaadadii baana labadan midna idinkala qaybgalayn ayaguna sidoo kale noqono walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu allah aan caabuday waa macbuudkii waay walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu cibaadatii cibaadadayda tawxiidka ana idinkuna caabudi maysaanoo shirki baad ku jirtaan aniguna tiina caabudi maayo allahan caabudayana isku darsan mayno idinkuna sanam baad caabudaan annaka alla keligii baan caabudaa marka waxa weeye laba aayadoodna waxay ku saabsan yihiin macbuudku inagama dhexeeyo laba aayadoodna waxay ku saabsan yihiin cibaadadeennu isku mid maaha way inoo kala duwan tahay tiinuna waa shirki tayduna waa tawxiid sidaas weeye macnaha labadaas in la kala duwo oo aayadaha la yidhaahdo midba macno ama mustaqbal iyo maadi iyo xaadir lagu kala fasiro ama cibaado iyo macbuud lagu kala fasiro sidaasaa muxuuahay yaa fiican si ay aayaduhu ay mid walba macno madax bannaan u yeelato kadibna waxaa lagu khatimay lakum diinukum waliya diin halkaasi aayaddaasi macnaheedu ma aha diintiinnu way saxsantahay iska wata in la leeyahay mana aha in la leeyahay diintiinna waa laydin daynoo faraha laydinkaa qaada laydin taaban maayo ma aha labadaa tafsiirba mid waa khaldan yihiin ciddii martay cid culimo muctabaroo martayna ma jirto laakiin dad mulxidiin oo zanaadiqa ah oo diimahoo dhan way wada jiraanoo waa wada saxsan yihiin dhaha ayaa qaabkaa maray marka waxa weeye macnuhu waxa weeye diintiinna idin khaasa aniguna taydaa ii khaasa waa ka beri noqoshadii un waay macnaha waxay la mid tahay aayadda qur-aanka ee alla yidhi wain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون نبي waxaad ku tiri haday ku beeniyeen amalkiina leedihiin annakaygaan leeyahay idinku bari baad ka tihiin waxaan sameeynayo anuguna bari baan ka ahay waxaad sameynaysaan taasoo kale la mid lakum diinukum waliya diin tiina leedihiin iyo wixii ka dhasha anuguna taydaan leeyahay iyo wixii ka dhasha waxbana isku darsanmeen sidaas laga wada ee marnaba laga ma wado diintii gaalada ayaa leeyahay waa sax iska wata waa sida hadda zanaadiqada iyo mulxidiinta iyo almaaniyiinta iyo waxan diimuhu waa wada saxsan yihiin dhaha ayaa qaabkaas mara oo waxay ku leeyihiin oo islaamka ab hadda diimaha kale ogole aaway xageebu ku ogolaaday lakum diinukum waliya diin soo geeyri ma idinkuna diinna haysta annataydaan haysanaya macnaha ma wala hatta kuma saabsana yani wax weeyaan diintiina waa la idin ogol yahay waa la idin fasaxay raali baa la idin ka yahay midna kama hadlayso laakiin waxay ka hadlaysaa suurada qaybta hore waxay soo taqriirisay oo tiina wadanaysaan annataydaan leeyahay waxna isku darsan mayno mas'aladan hadda caankee la yiraahdo wahdatul adyan iyo diimaha hal mideeyo iyo waxa la isku daray iyo al-adyan al-ibrahimiyya diimaha nabi ibraahim ka soo wada jeego kristanka iyo yahuudiyada iyo islaamka iyo hal mideeyo diimaha tasaamuh yani hal haysu yimaadeeno muxuu ahaa heshiyeeno waxa weeye waxa muxuu ahaayay ay suuradu diidan tahay islaamku waa xaq adyaanta kalena waa baatil shirki ku salaysan xaq iyo baatil isuma yimaado tawxiidkiyo shirkiguna meel ma wada galaan tooday wadano abaalkooday leeyahay tanna wax weeye tii saxda ahayd marka isuma iman karaan la iskuma dari karay tana waa suuratul kaafiruun waa suuradaasi waxay ka hadashaa sidii culimadu leeyihiin يعني توحيد كان ليراد التوحيد العملي الإرادي والدونك وحل الدوني إلهي إنه أكليله عبادة أوصمينيو إلهي كريج إنه أوصميه سداسي معنا سورة النصر وكحكتا أيضا سورة دني وسورة مدنية واحد سورة مدنية بمعنى وحي سودكتي مرحلة دي دنباء النبي مديني صلى الله عليه وآله وسلم أي سودكتي سورة دني هالموضوع بيضنا كهلي موضوع كان ليس وحوي نبينا صلى الله عليه واله وسلم مسؤوليتي xilki loo soo dhiibay markuu gutay oo dadka diintii gaarsiiyay oo diintii faaftay oo xoogaysatay ayaa marka waxa la leeyahay xilki waad gudatay waqtigaagiina waa soo dhawaaday diyaar garow marka waa digniin iyo iclaam nabiga la ogeysiinayo in waqtiga geeridi soo dhawaatay طيب سيدا وحات المامية حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بخاري باصو صاري عمر باوحو أهانشري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن عباس ويل دلن يراه أيو شعلا مركا قولياش أضياش إسقوة يمادان أضياش مدحيوين تصحابة إيو ريب بدر إيو رجع أضياش قولياش إسقوة يمادان بويل كيرك ابن عباس كيني تشري عمر با كيني تشري rag marka waxa odayaasha kamid ah waxay yiraahdeen war wiilkan yarka de wiilal leeg baanu dhalay wiilkan yarta odayaasha uu la keenayo muxuu ahaa anagu wiilal leeg waanu leena mana keenno meesha Umar marka wuxuu damcay inuu wiilkan yarka inuu san wiilasha la qeyrka la mid ahayn buu rabay inuu muujiyo odayaashii maalin maalmaha kamid ah marka iyadoo ibn Abbas wiilkii yaraajo ibn Abbas ayuu wuxuu weydiiyay بل إيجا ورما إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بل سورة ده كورما حي كهل ليس وذياش واحد ده حي كهل لا النبي جمرك إلهي يقول سي ومكة أوفرت وأو جول يستو بلاليه هي تصبيح سو إلهي دم بلاف ويديسو أنت أون آيات ظاهر كذا كم مغضي الشيء مركزو عمر ويديي ابن عباس ابن عباس هذيك محي كلها طيب مركزو يري وحي كهل ليس suuradani nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxa la ogeysiinaya inay geeridiis soo dhawaatay sidaas daraadeed waa ogeysiis nabiga gooni loogu sheegay waqtigaagii waa dhaweeya Umar markaas wuxuu yiri anuguna sida baan ka fahansanay طيب marka bimaana wax weeye taasi ka hadlaysa nabiguna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markay soo degtay wixii ka dambeeyay oo dhan uu ku amal fali jiray sidaan arki doona macna
إذا قرتي جاء ويمادا مركا ليدي إذا قرتي جاء ويمادا نصر الله إلهي هي لنتي سمركي تماد وكوهي ليو وقعن كاسي عدو قاك والفتح إيا فرشدي مكة ورأيت آد أركته الناس ضدك آد أركته يدخلون أيقو قليا في دين الله إلهي دينتي سأيقو دح قليا أفواجا أيقو كوح كوح دينتي إسلامك أيقو قليا أيقو جروب يا كوح كوح يو يقول كوتا أيقو أسو قليا مركز أركته هي فصبح تسبيح سو بحمد ربك مهدين تيسا هذا قدر يا أمل الله لقبه واستغفره الدم داف ويديسو إنه إسقو كان وحو هذا توابا متوبة أقبل بدنه على مدى المركز أركته وحا ليلي بمعنى حلكي نقودتي غيري دادون واسود ودهي أرمها المركز كوددال أرمه أركي محاته مركز دلائشة وإن إلهي النصر يقول كسيو وعدو قاقي أتكقو ليستو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وحلا لولتمبا أخيرا جزيرة العرب عربتي تشوكتي واكأت كاذي إلهي بقى قول كسي والفتح وحا لقا ودا فرشد مكة والنبي قوحو فرطي صلى الله عليه وسلم وقعنتي سايسوغا شي سنة كي سيدادة هجرية مركو قبصدين النبي صلى الله عليه وسلم وحو تشوغي وحير مركو تشوغي وحو مقلي إني إسو أرور صنيان لوا قبيله هوازن يثقيف لي هذا والطائف دنك دق جري أيوب مقلي إني عيد ما أرور صنيان وحير كدب وكدو للنبي صلى الله عليه وسلم أيجينا وكأت كاذي غنائم بدنا وكفرت سنة كاس سديدات بمركب مكة أسوق عن قش النبي صلى الله عليه وسلم قريش وحيد قال الذي كنت جمو أنت هذه كلوا إسليبين مركب مكة مركات فرطه إلهي عدو يعني قول كاسيو مكنا عاد فرطه قعنت هذا أي سوقشوا أو ضدك عاد أركته أو دينتي أسوق جليه كوح أسوق جليه يعني ويضا وحي هيد عربت سيد يدبا النبي صلى الله عليه وسلم مدة دير با waxay dagaalamayeen qoysku ka dhashay oo Quraysh ah iyaga soo weeraray say weerarka ugu hayeen dagaalkii Ahzaab ama dagaalkii isbahaysatada ama dagaalkii Khandaq wixii ka dambeeyay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wixii hadda ka dambeeya inaga ku duuli doono inuu soo duulayaan laakiin qabaa'isha Carbeed ee kale ayaa waxay rumaysnaayeen oo ku tashadeen محمد يرهركيس أن سدينه هذو كأت كهذانا دينك أمم بعدي كرنا أسليبنه وأن دينتي سقادنه هدي أو كأت كان ويا يجو إنك جا في اللادان هذا الشرك يسوي إنك جا في اللادبا سيدا استراد يدو حلقات درسوجة هي أو عربي أي حقوق يبسنة يسي مكة محمد مقفصن دونا مثل مقفصن دونا مركي مكة صوق عن شيء وحرونتي ugu muhiimsaneeyay qabaayisha Carbeed ba ugu muhiimsaneeyay Quraysh ugu xoog badnayn la qabsaday markaas qabiil walba iskeenay marka waraayta an-nas yadkhuluna fi diinillahi afwaja sanadka sagaalaad waxa bilowday marka waa sanadka aamul wufud qabaaishi Carbeed ba qolo walba wafti soo dirsadeen waftigaas maxay wadaan waanu soo islaamnay qabiilkii baan wakiil ka nahay reer iyo qabiil iyo guud diintii loo soo galay marka إلا أنت كورس الدين تموت هالروحية الله بالروحية إن يربى له سوقلي مركا الدين تبع حوجيستي مركا وحوي عاد أركتوا يدتك يدين تأسوقلي كوح أسوقلي حالة دا مركا يدعو حلكي جودت الدين تفافتي حوجيستي رجي سي ودي الهابات كجت جوي معنا هذيك مركا وقت جايب دوادي صدق قد كود دا المركا تصبيح دا حمد لله دا الحمد لله دا يستغفرت خاتمة عمري جاجا وأرمها لدونه إن عمرك كو ختمته استغفارته هي التسبيح ده هي حمد لله الحمد لله ده ساس دراد النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة ليدهي مركي سورة دني سود دكتي وحي كدن بيي صلاة مؤسن تكنين إلا هدو تكذي كموسن تجن إنه يلاهده ركوع ده مركو ركوع سيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سوى كو عمل فليا يعني أيضا فصبح بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم فصبح بحمدك وبحمد ربك اللهم اغفر لنا واستغفره مرك الركوع ده سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبدين شري الى تيسي وقت ما صلوات ربي وسلام عليه مرك سوره الساسو وحنا كو عمل فلي شري فلهي يعني وحويان ايضا امرك لوغسيه فصبح بحمد ربك تسبيح دو الهي لغا فوغيو oo laga nasaho wixii aanu qalmin oo dhan
xamdaladuna waxa weeye in ilaahay loo sugo wax kasta oo sifo wanaagsan ah istighfaartuna waxa weeye adoonku khaladaadkiisa inuu ilaahay weydiisto inuu u dhaafo iyo dambiyadiisa suurada xigta waa suuratul masad weeye suuratul masad ayaduna hal mawduuc bay ka hadlay mawduucay ka hadlayso waxa weeye qoys nabiga la dagaalamay iyo dacwadiisa oo ree Abu Lahab la dhigi jiray odaygii iyo xaaskiiba si wada jiray nabiga dacwadiisa ula dagaalameen qoyska iyo waxay ku dambeeyeen iyo waxa ku dhacay ayaa laga warramay طيب waxay ahayd ku soo degtay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam xadiiska Abdullah ibn Abbas uu tilmaamayo markii ay ku soo degtay wa andir ashiratakal aqrabin qoyska xigtadaada dadka ku sii xiga digniin khaas gaarsi marka nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wa sallam ayuu nabigu safo buurta safo korkeedu fuulay waa dhawaaqay marka qoyskiisii u dhawaaqay kor buu ka soo bilaabay jilib laf ilaa uu magacyada qaarkood dadka qaarkood magacaabay warkaalayaay war imaad oo sii yimaadeen marka حتى إن كان إيمان كرين ضد بصادر صدق ماشي مركل اللي يسوي يمد أيوه حلو والبلكة والرمى بورتن لنا عادة وباكسو الصعدة أو إذن قلي الربا هدان إذن هذا ما يقرر ما يسان يسان وحيد هولي قلنا بين ما ناكو تشابيني بين لقاقا ما برنين وهلا قرر ما يسان واحد ورهدي سيداس تاهي عذاب إلهي أو دوبان إذن كدقيا إثبت بهذه سيدا مركو النبي صلى الله عليه وسلم وضيق أبو لهبها أيام مركب وحكول تبا لك سائر اليوم ألي هذا جماعتنا هبار كودع وهلاك سن هلاك كودع ما أنت واحد نو أروني سما واحد سوهاب واحد لا واقع سو كان كنت نص شير سما وعزا مركب تيبا وذيجي هبار باكودع سيحن بقول أنتي عذاب نواقر صورة مركب وحكول سافرت إسقي حاسكيس أنا واحد لديه شري أم جميل بنت حرب أبو سفيان بي ولا لا أهين marka wax way Abu Lahab xaaskiis ayaduna waxay ka shaqeyn jirtay nabiga dhibkiisa sallallahu alayhi wasallam intay soo gurto qodxaha iyo qashinka iyo ooda ayay meeshu marayo nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo jidkiisa iyo waxa sayiduna ka shaqeyn jirtay tabat halaksanto yada Abi Lahab Abu Lahab labadiisa gacmood halaksameen waa habar wa tabba waa halaksameen waa halaksamoo kudaakaasi waa u dhamaatay ما أغنى مدق عنه حقيسا ماله حوله سي إيه وما كسب وحو شقيستي مركي أو هلاك سمينا حوله سي إيه عرورتي سي إيه وحو كسبضي أردن مقع إيه مقال وحو لهابا وحو أمينة ترين وحمنا كمين علين سيصلى وقلي دونا النار وقلي دونا نار تاسو ذات لهب هلع صحيبة نار هلع يسو قلي دونا وامرأة ناكتي سنو وقلي أم جميل أيضاً ويقولي دونتا حمالة الحطب حال أي تهي مد حاب حنبارس بدن قرية قرد يا حنبارس بدن معنا طيب في جيدها اللقنت هذا نحن روحة هذه حبل حرق أو من مسد حس كل الصهيئة أما الله شيء وحل الصهيئة طيب أسقي وهلك سمي وأنا الله باري وأنا هلاك سما وأودمات لكن مركي اللي هلاقي wuxuu ku faani jiray xoolihiisii magacii uu lahaa wiilashiisii hantidiisii waxba weyn u tarin waxa way ka difaaci waayeen adduunka hadduu soo ku halaagsamay aakharana naar holcaysu gali doonaa keligiina geli maaya naagtiisiina way la geli doontaa iyadana sharleyd ahayd ayadoo xaba xambaarisma xamaalat alxatab waxa way culimada qaar waxay leeyihiin waa cay oo iyadii baa la caayhaya qoriyo xambaarista badnayd ما هي وحيليه قاركود ابن تيمية علماء وحيليه ما وحلق وضع مركي نارتا قشو نارتا إساق اللقوشي ده هايو حابدي اللقوشي دي لها بيتونك كو كينيسا أيضا تاسا اللقوشي عذابية وعذابك إساق او كالمينيسا سيد أدونك مركو تشوغي بالنبي قد دقال كيسا او كالمين جرتي بعذابك هدنا او كالمينيسا معنا الجزاء من جنس العمل لأنه وحوي رقن كاكو سيدو أبال كاكو نقندونا معنا كدبنا في جيدها حبل من مسد لقنت وحلوق القلينا يا سلسلة نار أو صوهن ويعني حرق الصوهن مسد كوحل إلى هذا يعني واحد شرق جيدها حركها لقى الصوه مركه روالة توما ولا قرع سيدا حسكوش أو كلا إيو محوها هاي جيد كلا يرادو جيد كتمرت ألامه سالك سمية جيد كقنبها اللي يرادو كلا أما بارك أو كلا السجن ألامه سالك سمية مرك أنت لقى سمين ولا توما
markii la tumo waxa ka baxaya dhacaanka iyo qashinka ka baxaya kadibna waxa soo baxaya yani maadadii xariga laga soo hilaha marka masadka waxa la yiraahdaa waa xariga laga soo hay waxyaabaha xariga laga sameeyo anaga xaqina xaskul baynu dhigi jirnay isticmaali jirnay carabtu laakiin waxay ka sameeyaan geedka timirta jiridiisa iyo laamihiisa ay ka sameeyaan macna adiga waxa weeye silsilad naara luqunta ugu jirta warka murtiyo saas tabad ha halaagsanto yada abi lahabin ayadu marka yani fariintay diraysa maxay tahay suuradu fariintay diraysa waxa weeye cidi isu kaashata ama qoys ha noqdo ama koox ha noqdo isu kaashata xaq inay ka hortimaado la dagaalanta ayagana waxa weeye halkaas u dameen adduunkana guul daro آخرنا عذاب إلهي بيكون جبنيان أيقو قيس أنا ما كوحنا أنتي إسكاشتي معنا طيب سورة حكتاي وحويان وسورة الإخلاص سورة الإخلاص أيضنا هل أرم بكهلي إلهي تبارك وتعالى إن لنزهه وحيالها عيبتها لجنزهه الله تبارك وتعالى الصفات كيسي كهليسا توحيد كقيبت التوحيد العلمي سورة الكافرون التوحيد الإرادي العملي بكهلس تنين وحي كهذا التوحيد العلمي وما دل دون إن لأقاده لاعتقاديه أي كهلس تانا وحي كهلس عمل إن للسمايو إلهي اللوغوني يلا الله بهنا ساس دردد منصور شيقني إنه النبي يقول لوضوض اسكول لما ننشري ميلا فربضا ومحوها هاي التنة يقول يا الكافرون هرما ننشري سورة الإخلاص نكدب ميسينشري سان صوت المعنى معنا قل waxaad tidhaahdaa waxay ku timid marka suuradani ay ku soo aroortay nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam gaalada waxay ku yiraahdeen maxamedow allahaaga aad caabudo noo sifee riwaayad kale waxay leedahay u abtiri unsub yani allah aad caabudo xagee buu galaa muxuu yahay sifaadkiisu muxuu yahay noo sheeg طيب sidaa markaas ilaahay wuxuu soo dajiyay suuradan soo dajiyay qul waxaad tidhaahdaa nabi maxamedow huwa أرنكو الله أله أحد إنه مدي هيوي هو ذو ضمير الشأن بأمرك الله دقيقة هو أرنكو الله أله أحد إنه مدي هيوي أرن واكا أرن سيدي سبا إيو شأني دمانتي إنه أله مدي هيوي طيب هون للبينين الله أله الصمد وسيدك صفات كيسو دميسترن يهين سيدك سيد نمديسو دميسترن تي صفات كدميسترن مدن ان عيب يدي مناش من الهين لم يلد موسى دالين ولم يولد لمن دالين ولم يكن من اهان له اسغا كفوا مد ودغما احد عيدنا مد ودغنت ما اهان الله احد وحي ميشه كساريسا ونفي المشاركه والمماثله وحنا لما وداغو عيد لميدنا ما جرت ليس كمثله شيء لا ذاتديس wax lamida ma jiro ولا صفاتكيس wax kula mida ma jiro ولا افعاشيس كل مد بو واحد في ذاته في اسمائه في صفاته في افعاله كليبو كويه طيب بينما مخلوق اين صداهين الله الصمد صمدك waxa la yiraahdaa waa sayidka sifaadka dhameystiran oo dhan mudan sifaadkiisu dhameystiran yihiin مثلا waxa la yiraahdaa al-azim alladhi kamula yani waxa waa midka weyn weynadiisu dhameystiran tahay waa midka dulqaad kale dulqaadkiisu dhameystiran yahay waa midka cilmiga leh cilmigiisu dhameystiran yahay waa midka deeqda bixi deeqdiisu dhameystiran tahay sifo kasta oo sifatul kamaalka midka dhammeystirtay baa waxa la yiraahdaa samad la yiraahdaa waxa kamid ah samadnimada in loo baahayo uusan baahnayn saas daradeed baa mufassiriinta qaarkood waxay ku fasiraan oo yiraahdaan yani wax weeye macna waxay siiyaan inay yiraahdaan waa yani wax weeye kan loo baahan yahay baahnayn waa kamaalkii waa معناها في يعني وحوي إن ليدادو الصمد وسيدك صفاتك دميستران اسكاله لمنانا أين ميلك سوكلوا طيب كدبنا سمديدو محي كينيسا إنو صفات دميستران ليه محي كينيسا وحي كينيسا إنو كافتومو وخلقي سا أباهنين غني إنو يهي غنيه سنة دميستران
taa waxaa ka dhalatay marka inuusan dhalin lana dhalin laanna wax la dhalay waa naaqis soo ma wax la dhalay isagoon jirin baa la keenay waay intaan la dhalin muusan jirin dib buu ka yimi waa naqsi طيب mana dhalin oo cidda wax dhalaysa waxay u dhashaa baahi adi markaad caruur dhalayso oo korinayso waad u baahan tahay haddaadan u baahnayn mana aadan koriseen madan aadan dhasheen sidaas daraadeed allaha samadiyadiisu waxay keenaysaa inuusan dhalin lana dhalin labada sifaba waa sifatu naqsin marka xagga ilaahay la fiiriyo makhluuqa marka la fiiriyo ayay waxay noqdaan يعني waxa way sifatu kamaal noqdaan laakiin xagga alla marka la fiiriyo waa sifatu naqsi samadiyada ilaahay baa diidaysa marka ma dhalin lamana dhalin طيب cid ilaahay u qalanta ama u dhigantana ma jirto tii hore si adkayno macnaheedu waxa weeye seebu ilaahay u dhali ama loo dhali cid u dhiganta ma jirtee طيب laana hadii la yiraahdo wuu dhalay ilma u dhigma jiro way macna xaas u dhigmo uu ka dhalay baa jirta iimaanaysa macna waana quraanku inoo sheegayo anna yakunu lahu waladun walam takun lahu saahiba xaasba waligi ma yeelanine seebu ilmo ku dhaliyaa waay laana ilmu leeyahay bimaana xaasbu leeyahay xaasbu ka dhalanaysa macna marka naqsi waa ceeb waaye iyo cay ilaahi laayo tabaaraka wa taala taasi meesha ka saaraysa yaa yiri marka ilaahi ilmu yeeshay waxa yiri kristanka ciise ilaahi baa dhalo waa wiil ilaahi bay dhahan yahuud waxay yiraahdeen Uzayr waa wiil ilaahi carabtuna waxay yiraahdeen malaa'iktu waa gabdhihi ilaahi kulligood ayay wada radinaysaa war waxaas ilaahi ceebta aflagaadada ka daayalay huwa sha'nigu ama arinku Allahu alla ahadun inuu mid yahay way Allahu alla as-samad sayyidka sifaatkiisu dhameystiran yihiin way lam yalid muusan dhalin walam yulad lamana dhalin walam yakun mana ahaanin lahu isaga kufuwan mid u dhigma ahadun cidina ma ahaanin يعني وحوي شريكنا ملء عد لم يدنا مجرت الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء سورة الفلق وهي سورة إنه حكتاي أيضا هو سورة مدنية وحي سودكتي يدي يتقدم بيس سوران كقدم بيسبا مرحلة النبي مدينة صلى الله عليه وسلم قل وحتى هذا النبي محمد الله وضع سورة ضبا وحي إن بريان إن إلهي مجنق الله تبارك وتعالى إن إلهي أن مجنق الله أنكو عررنا أو وحيالها إن النبي أينك عررنا قل وحتى هذا النبي الله أعوذ لبضوا وحي كم يديسين لبضوا بفضيلة السيادة بيليه لبضوا سورة برب الفلق برب الناس با فلق إيو الناس لبضوا سورة با صحيح مسلم كسيدة قصة من حديث عقبة النبي صلى الله عليه وسلم آيات وحل يقصوا دشي عاوة إيجو كلا أن لا أركين بالنبي صلى الله عليه وسلم مركز لبضوا سورة أخرية وحكى النبي صلى الله عليه وسلم إن أويري لبضوا سورة wax ilaahay lagu magan galo oo la mid ma jiro saas daraadeed buu nabiga sallallahu alayhi wasallam akhrin jiro ilaahay ku magan gali jiray galabtii adkaarteedu ku jirtaa waxay ku jirtaa subaxdii adkaartooda salaadaha gadaashooda xilliga la seexanayo iyaga dhan waa xirsixid waa lagu xirsixidhaa labadooduna waxa loo soo dajiyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam markii la sixray nin yahuudiya oo Labiid ibn Asam dhii jira sixray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka يعني waxa sida Bukhari ku sugan nabigu inuu xaasaskiisa u tago mooday mana uusan u tagin yani waxooga saameyn buu ku yareeyay sixirku ma bedelin nabiga aqligiisa laakiin waxooga uu yara saameeyay sallallahu alayhi wasallam kadib laba malag baa u yimid loo soo diray labadii malag baa midna madaxa ka fadhiisay midna xagga dama hore xagga lugaha midna xagga madaxa markaasay ku dul sheekaysteen war ninka ka waran maxaa haya waa sixran yahay oo yaa sixray Labiid ibn Asam oo muxuu ku sixray wax yaroo timihiisa ka go'ay iyo shanladiisa wax yaroo ka go'ay iyo waxyo isku xirxiray oo xageebu ku jira ciilka darwaan la yiraahdo yusalkiisa dhiga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka suuradana lagu soo dajiyay kadibna uu akhristay markuu hal aayada dhameeyaba yani caafimaadkiisa isbedel buu ka dareemay sidii isagoo xarig laga furay oo kale ilaa midda ugu dambeeyay markuu dhameeyay fay nabigu waa ka booday sallallahu alayhi wasallam marka waxa weeye waxa laga akhristaa xanuunada iyo cudurrada sixir haday tahay il haday tahay suuradana macna waxa weeye xirxir weyn waa qul waxa li nabiga sallallahu alayhi wasallam qul waxa tirada a'uudu waxaan magan galayaa bi rabbil falaq wa barka ama dilaaca waaga rabbigiisaan magan galayaa falaq waxa weeye kan la dilaaciyo al mafluuq waa kan la dilaaciyo rabbigiisa wax kasto la dilaaciyana waa la dhihi karaa oo inta la kala dilaaciyo wax ka soo baxaan faliqul habbi
والنوى يفالق الإصباح لكن مفسرين وحي بدنيهين ودلاع وابركة افتين كيسو مركو صبح ربك وابركاسي اسبدل كاسي افتينك وابركة الله دلاعي بان كل ربك دلاعيان كل دارتي يان مغان قليده وحان كم مغان قلي من شر ما خلق وحو أبوري شركيسة وحو أبوري ومحيئة مخلوقات كودن مid qarsoon mid la arkayo mid jin ah mid bini aadam ah ma khalaq wuxuu abuuray oo dhan sharkiisan magan uga ah ilaahu waxa abuurto dhan sharkooda iga qaba waa tayib wa min sharri ghasiqin markii sida loo camimayo sharkii makhluuqaadka oo dhan aad ilaahay ka magan gashay yaa hadana kuwa khaas oo si daran baa la sii magacaabay wa min sharri ghasiqin dayaxa sharkiisan ka magan galaya ida goortii waqaba oo mugdi galo أما ومن شر غاسق هبين كشركي سان كم جنجليا إذا قرتي وقب ومجد قله أو مذوب هذا معنى أيا كم جنجليا طيب غاسق علماء التفسير قالوا وحي الوهابينك قالوا وحي الوضيح حديث باكوسوغان عائشة ورينيسو والنبي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كعمت إقبتي مركاسو ضيح إتصي مركو صباحي مركاسو وحي للتعوذي بالله من شر هذا عائشة كان شركيس إلهي كما قال واضح فإن هذا الغاسق إذا وقب غاسق إذا وقب كلا جوا الرمي وإسقى الغاسق إذا وقب وإسقى النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كما قال مركز ضيح مركو مذوباده أما هبين كمجدجيسة سجونية إلهي وجمع قال وحي إلهي واحد وجمع قال إذا على سنة وحلك الشياطين تا يا الشركة يا أنت وحفسادي سبع حلك دقائق واحد inta badan iftiinka iyo maalinta yaani sharku waa kariya habeenkii ba inta wax dhibta iyo inta shar la hodna ay dhaqaaqda shayaadiintu xataa habeenkii bay faaftaa saas daraadeed baa si gooniyo loogu magacaabo wa min sharri ghasiqin dayax sharkiisa ama habeenka sharkiisa ka magangeli yaan alle ka magangeli ida goorti waqaba oo mugdi galo oo madoobaado macna طيب ومن شر النفاثات كوا أفوفا شركودان كم جنجلي الله في العقد كنت ما نحضر أفوفا والساحرات كوي معنا كوا وحسحرة يعني نففيالك أما الضمر كوحسحرة نفاثات النساء النفاثات أما الأنفس النفاثات وكوا أفوفا كنت ما يجنا والسحرك والسحر كسيجونية وحلوه مجعابي لأن السحر كشياطين بالاستعماله يعني ينفوس يعني شريرة وحياله اسكو جونتان marka waxay sameeyaan waxbay guguntayaan kadibna waxbay akhrinayaan shayaatiinta kaalmaysanayaan wixii bay ku tufayaan sidaas ruuxi marka ay ku sixrayaan ama caafimaadkiisii ama noloshiisii ama dhibaato macnaha ay ku geysanayaan marka kuwaas guntimaha afuufaya wax sixraya sharkooda ayaan rabbi magan uga ahay wa min sharri hasidin حاسد شركيسان ربي كم جنجلي إذا قرتي حسد وحسدو حاسد كنا وحوي وامدك أن وناجا هذا يستو كل شعلين كل مرة بو وناجا جو إنه كل عفور ربع حاسد كهدو مركا حاسد كو يسقو جودي يسقو شرو موجي سنين أو أصلا كقولك عن يسقو ربع لكن مركا ونبكي سدتك جاري وحوي إذا حسد مركو حاسد لماذا موجستو وكل دقائق إنه دتك حسدو مركا وكو إليسن oo ishu waxay ku timaadaa xasadkaas ku timaadaa tilaabooyin buu qaadi oo kugu dhibahayo laana wanaagii khayrka aad haysato nacab yahay kaana sharkiisa ilaahay baan magan uga ah kuwani marka waa khaas marka hore sharki caamka aha kadibna si gooniya ayaa kuwan loo sii magacaabay saas way macna suuradaasina waa suuratul falaq waay suurada inoogu dambaysa quraanka wax weeye suurada ugu dambaysa waa suuratul naas ayadana waa suura madaniya oo tii hore la mid tahay saan hore u sheegnay ayadana hal qodob ay ku saabsan tahay oo ilaahay aan ka magan galayno layna barayo in ilaahay ka magan galo maxay tahay waa shaytaanka laba ah qaybtiisa jinka ee qarsoon iyo qaybtiisa bini aadamka ah ee xumaanta ka shaqeysa labadaas ilaahay inaynu ka magan galaalaynu ku barayaa طيب qul waxa tirada a'uudu waxaan magan galayaa bi rabbin naas dadka barbaariyahooda الله نعم كيس أضومه كبر بارية ملك الناس دتك بقر كودا
ومدك إسكاله أدوم ضم مامولا إله الناس دتكم مدك عابدان وأونسكم مد صفات كاس إسقى وضر الله رب جاسن مجنجليا محد كم مجنجليسا من شر الوسواس وسواسية شركي سان كم مجنجليا كان وسواسية شركي سان كم مجنجلي الخناسي دي بقرا شذا بدن أما لبدأ يقوم شذا بدن الذي كاسو يوسوس وسواسية في صدور الناس دتك الله بهذا وسواسية ومن الجنة جنة والناس ددة جنك يدتك بكمده جنة دتكنا برب الناس وحوي ودتك الرب جودو الضومدني الله أبورتي قعنت كوهية الرمه أتاجن إصلاحية وإسقى إسقى كعريا ملك الناس ويو إسقى أمره يعني وحوي وحكر ريبة أو إسقى مامولا ملك صوت وحوي يعني وحى لوكيان استفادا لوكياني صوت وحوي أدون كمركو لب دريمه بقر كيسو كعرة مركب ملك الناس إسقى بالوجو عريا الله تبارك وتعالى إله الناس هنا وميت كيدتكو عابدان وعبادة إلهي عابديان يد الله فتيدا حرس حدا الله تبارك وتعالى صفات كاله أياد مركب مجنجليسا وحد كم مجنجليسا كان وسواسية شركيسا وسواسين تبدن واكي وشيطانك خناس وحلو مقعابي أدونكم مركو إلهي حسنة دبوا أقرتاو عرّا مركو أدونكو إلهي حسكيسا هالمامنا وكسر للمايو مركاسو إساسو دايا لكن النبي جانو لها صلى الله عليه وسلم مركو آذان كرعه وعرّا سوى الضوضة النافك سيديني إلى وآذان كمقلي واحد مركي وآذان كل ما أذان وصيعة مركي أقيمات الله بلابو هدنا عرّية مركي أقيمات دماتو صلاة هدنا وزمانة يا مركز صدت كشتور حجليا صلاة دي مركي لقالوا روحي وسواسنا يا وحوسن حسوسنين بحسوسنا يا إلى الروح وجرن ويا بإمسا تكتي حاجات مرتي بطبو كفر مركي خناس وحلو مقعابي مركز إلهي حستوا جبنايا وكعريا دبوا قرنايا مركز إسهالمانتنا وكوجس اللدمية طيب الذي يوسوس في صدور الناس وحي تلماميسا بني آدم كميشا وكجت تعلق أو شيكي وقلبك وسوسة وحل هذا وشيكة قرصون كوجو صعوته آدم أجين مالك هذا صعوت ما عرفت وح كوجو هذا وسوسة ليدا يعني قلبك عجو شيكين وميشا أجوها لسن شرك بني آدم كحرنتي سوى قلبك أساقو مرك اللقط يقعنتي مالها أنت بنسكو مشغولين مايو لكن حرنتو كاجليا مشاسو وشيكين هيا وحبو كسو طور هيا وسواسكو كطور هيا شو شيكين يا حمانتي وتعليسين يا وحيبو كو قرحين يا أضل لقوتهم بعد سركي وربلا أيضا كو شقيسان سمحيته نينكي ما كاش شقيسان مركب في صدور الناس مشاسو ضدك كجلا طيب جن إنسي جن ضدنا وايه جن وايه بالي من الجنة قرني شياطين الجن واي وكوا إنك قرصون يا أين أركين والناس محل جودا لبا سوق لي مدك ومد ويان هرت بني آدم كقاركيس شياطين تا وكوا شركة كشقية قال لماذا ضدك أقويرة فسادك أقويرة أخلاق حمدة كشقية وشياطين بني آدم وحسوق لي والناس إذا سيد علماء قاركود ليهين أذيك النفط هذا أيضنا وموسوسة وسواسي سوي وحين سوق ليس والناس ساسوي معنا نفط هذا ويسوق ليس وإله القرآن كأنه شيء ونعلم ما توسوس به نفسه مر نفط هذا كو شيكين وحمانتي كو شيكينيس مركب واحد إلهي كم من شيء صدح شيء شينك شياطينتيس بني آدم كشياطينتيس هي النفط هذا كو شرت الشرك هذا انت بو إلهي بعد كم من قش وانا عدو جاجا شراء أدونك كشراء كو خطر سماه سورة دني مركب انت سيكون مجنجلية ده سيكون صابسنتها إلهي عدو جاج إنها كم من قش معنا طيب إنها إلهي كم من قشوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يعني وحوي تشنكي إنس ولا وضع شياطين بإليه قل وحتى هذا أعوذ وحن مجنجلي برب الناس ذاتك الرب جود بان مجنجلي برباريها ذاتك برباريي أيان مجنجلي ملك الناس ذاتك بقر كودك عنتك وهي ماموله إله الناس ذاتكم يتك حق عابدان بان مجنجلي من شر الوسواس وسواسية شركي سان كمل واقرين وكل ما روح والبوح ليه
mid kula maan oo shaydaan ah oo loo dirayba shaqo kale ma qabto markaas nabiga wuxuu yiraahday rasuulka ilaahay xataa adiga kaygii ilaahay baa iiga kaalmeeyo waxaan khayr ahayn fari maayo nabiga sallallahu alayhi wasallam min sharri alwaswasi kan wax waswasiya sharkiisa alkhannaasi ee dib u gurashada iyo libdhida iyo gabashada badan markii ilaahay la xuso alladii kaasoo yuwaswisu waswasiya fi suduri nnaasi dadka laabahooda waa qalbiyada halkaasuu u sheekaya sheeko qarsoon oo la arkaynin buu ku akhriyaa طيب oo min aljinnati jinka kamida ama jin ah iyo wannaasi dadka ah jin iyo dadkaba ah isugu jira ayaan ilaahay magan uga ahay waay labada suuradood marka waa laba suuradood aad muhiim ah ruuxa noloshiisa in uu badsado oo ilaahay ku magan galo oo muxuu ahay meel walba oo cabsi leh oo ku xirsi xidho loo baahay wax lamida ma jiro adkaar lamida oo ilaahay lagu magan galay ma jirto sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ayagoo kala wax walba iyaga ka sita sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka lagu dala gaar ahaan hadoo kale oo dadkii shayaadiintiina ka sayid calaysay intii shar kala haydna ay badatayo ama caafimaadkoodii ama yaani guryahoodii ama noloshoodii ama yaani ay halis ku jirto yaani wax weeye balaayo ay ku saliidan tahay muxuu ahaayay ku xirsi xirashadooda iyo akhrintooda insha Allah ta'ala hala badsado intaas ayaa insha Allah ta'ala darsigii aynu ugu talagalay ramadaanka juz amma ayuu inoogu eegyahay oo inoogu dhamaaday ilaahayna tawfiiqda hayna waafajiyo wixii khalad ay naga dhacay uguma talagelin ilaahay naga saamaxo wixii aan asiibnayna ilaahay tabaaraka wa ta'ala ajri naga siiyo allahna inagu anfaco hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi